بسم الله الرحمن الرحيم. وعندكم السلام يا سلامة إسلامك. أنتي الناس حافتك تشوكتا يددوينها نداون دونا بقى. وحلودك تاجي أيامهن لبا الريموت وحسب اللي سوقيين ور ومدة كسيو تورا وحوي وده هذا الذي سدح الحزبي رمها الدور شوينكا مدة ديربان وده هذا اللي سدح الحزبي يجون جوني بقى أنا قلت تفاصيله قلين مدة وحنو شيء النار تاسي إن النتيجة الآن كل ماتي وواحد حزب سدح الحزبي سلقاتين وميل سلدقين si ay noogu suurto gasho habsami socodka doorashadu inaanay natiijo laga gaadhin tafaashiisheeda iyo cidda dalana wargaar aan ku soo saari doonaa waxa kale oo yeena jirtay safiiro dalalkii daneeyaasha ka socda oo aad u culus inay noo yimaadeen oo aanan la yimaadeen oo digniin la yimaadeen oo yiraahdeen haddii doorashada ay dimuqraadiyaddu horu socodkeedu hakado in Somaliland aanu tala dambe isaga noqon doono sidaan xolo qaban lahayn sidaan caawin lahayn iyadana mowqifkii xisbiga waanu sheegnay axsaabta kalena way sheegtay iyana talooyin bay keeneen wax ku oola oo hadii la qaato wax tari lahaa taasina tafaasiishada waanu geli doonaa iyana warbuuxa iyadoon la siin nimankii wax lagu heshiis yahay aan qaadan ayay tageen de waxay yeeli doonaan iyaga u taalay warbixinta soo celin doonaan arinta ugu weyn ee laga sugay ayaamahanba oo qarankan aad u taabatay oo ummadoo dhami ka hadlaysay oo saameyn xun ay nagu yeelatay waxa weeye arinta ganacsade Axmed Cusmaan Geelle xisbiyahan waxaanu goosanay anagu ilaa anagoo warbuuxa hayna mooyaane inaanaan hadal alxamdulillaah maanta way soo dhamaatay dawladdu soo aadashana waa arkayseen ganacsaduhu afayeenkii ganacsaduhuna waa kii jawaabta ka bixiyey annagana waxaa noo suura gashay inaan waqti dheer la qaadano ganacsadaanu soo wareysano oo xog ka soo qaadano arrinta maanta taagan waxa weeye ninkan waa nin muwaadin Somaliland weeye nin dalkan iyo dadkan laga xiga maaha waa maalgashadaha ugu weyn ee Somaliland maalgeliyay iyadoon cid kale lacag iyo shirkadaha ajnabiga ninka Coca-Cola keenay 20 milyan warshad ah oo maantana halkay marayso iyo marketka haysato iyo potential earningskeeda marka la eego 200 milyan maanta lagu qiyaasiyo وقرنقصدي أنه سيدي حكومة واحد الشدين بانكي دولة جيبوتي وكيل كنقط وحان تاريخ لا أرى ولا معل بعد عي نمكي دحدحات نقول لها ولي مواطن كان حد يسوي دوني لها واي حكومين مدحوينها أنا حكومي afayeenka madaxtooyada ku hadla afka madaxweynaha wuxuu xukumay wuxuu yiri waa tuug dambiile ah oo dal shisheeye soo dhacay oo halkan la soo galay wuxuu ku eedeeyay inuu xasilloon daro dalka ka abuuray wuxuu ku eedeeyay inuu ictiraafkii dib u dhigay oo wuxuu dhimay madaxweynaha aynu dooranay ee ummaddu dooratay إنه ما أنت الدولة شيء جيبوتي دولة شيء أما إنه ولا لهنا مدرس عنه وإنه كل حديث أنت سفر تجين لا بقى رانو درس إنه لا بقى رانو يسكن بالمؤمنين واحد عادي إنه وكيل حكومة دوية مدحوين هو نقدين دولة جيبوتي وآدي لوجح معه ومدينة كلا قيب سي qarannimadeedii in shaki gelisay lagama filayn maanta inay xukuumaddu mowqif ka qaadato waxay ahayd dowr shariif inay qaadato oo dhexdhexaada oo arbitration ah oo isu soo jiida
وحق روسيا أنتي وكجابسي ما أنت نوح له آمنية وأرنتها لجا آمنية ما جرتو عد uga fadhida inay go'aan wanaagsan oo dhexdhexaada iyo talaabo wanaagsan qaadana ma jirto waa dhinac nin dhinacina arinta ma gali karo waxa jirtay warbixintiisii anigu idin fasiri maayo waa wada maqasheen oo waa haysan waynu ognahay inaanu baanade hawliyaan lacag ku bixin markaad baan lacag ka qaadanayso damaanad baa la dhigaa rahana oo isagu soo qiimeeyo oo intii ku siinayeen ka badana waa qaanuun dawliya arintaas isaga banka ka dhaxaysa hantidiisii halka taalay ee banku loo wareegay inay dhamaysatay 20kii inaanay dhamaysan Axmed iyo banka u taala waxa xukuumaddan wax kaga leedahay oo meel ka soo gashaa ma jirto waxa timi Axmed hantida ka maqan وأنا مواطن في سوماليلاند أنتوا هالك حسيت الله هذه دولة دي سوماليلاند مدحوينه هذي وشوته وكيل خير نقضي ده تانا وكيل خير نقضي إنك أروح يساوي دونه وده هذا كقولوا هيدا ورنيك محوا كم مقنع كدو بحر ما هاي اللي أحمد هذا كدو بحر بقول يسديد 20 مليون أيوة شيء جنا يعني كم مقنع هاي دولة دي جيبوتي waxay ahayd xukuumaddu taana inay ka hadasho waxa jirtay qaabka maxkamadeena loo soo mariyay oo Axmed kaga cawday ninkii wax loo sheeganayo dawladda Djibouti haday go'aan maxkamadeed keentay oo banku keenay deena la wadaagay lama wadaagin hay'adihii oo dhan bay soo martay waxay u timi maxkamadda racfaanka manu ogeyn looma sheegin waxay haydun go'aan degdeg inta la gaaro leeyahay Axmed waxa waa la xayray ee doobax maantana arinta maxkamad Somaliland oo lagu aaminaya ma jirto go'aankay soo saartaana go'aan soconaya maaha ninkani uu dhacan yahay dacdushiina lagu ma garamo waa murti Soomaaliyeed dacdushi lagu ma garamo dawladda Somaliland waxaanu leenahay arinta waad ku ceebowday waad ku jabtay meel xun baad iska taagtay dhexdhexaadna kama tihid adiga maxkamadahaadana cid aaminaysa maanta oo oranaysaan dawlad ahaan baan ku galeynaa iyo maxkamad garsoor baan ku galeynaa ma jirto waxa loo baahan yahay Axmed waa maqlaysan hadalkiisii waxaan ku soo gunaanadayaa isagu uu sheegay inuu dawlad bixiye yahay iyadoo waxa soo dhammi ka maqan yihiin inuu dawlad bixiye yahay halaga dawbaxo qaabkii loogu dawbaxayna alla iska arko oo laga wada tashado